إمام الحسن البصري رحمة الله عليه يا وحى لغا شيغا إنو أوران جيري يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ورير نبي آدم ومالمون با تahay buu leeyahay maalin markay ka tagtaba qayb adiga kamida ba tagtay idan cimriga la sheegayo iyo waxaynu haysano waa secondisku adiga qiimo kuma leh laakiin nolosha marka la xisaabanayo marbuu jajabku qiimo leeyahay qoladan orda maxay kala dheereeyaan koon xufta carara 9 waa secondis wax ka yar ayaa qiimo u sameeyay idan ثانية أما second wax ka yar ayaa wan lagu galaa ama two lagu galaa ama jaayisad lagu helaa ama magac lagu yeeshaa ama kan lagu yeeshaa haddaba waqtigu qofka bini aadamka ah waa waqtiga waxaana cajiiba waqtigan aynu hadda joogno galbeedku waxay dadka bareen waxaan bini aadamku xoog u isticmaali jirin oo ah dadku markuu xabaasha ku sii dhawaadaba inuu farxo birthday waa maxay badbaad cimrigii tuurtay Soomaa xaq xabaasha markaad u sii dhawaataba miyaad farxi wax qabadku ma farxaysid waxaad intaajada soo kale ma jiro waa mujarrad in sanad ka soo wareegay intii aad joogtay inaad xabaasha ku sii dhawaatay weeyaan waqtiga caynka lehi sida qiimaha u leh كفايديسيسو wuxuu ku xidhan yahay yiraahdaan qiimaha waqtiga inaad fahamto hadii qiimaha iyo ahmiyada waqtigu uu leeyahay uu fahmo qofka bini aadamka ah waxa uu fahmaya garanaya sida uu uga faa'iideysanayo dadka badna xanuun buu ku noqdaa markay qiimihii waqtiga garan waayaan xulay wax allaaliyo waxaan qabtaan garan waayo waqtiga maxay ku dilaa haddaad dhimato waxa quraanku inoo sheegay bini aadamku inuu ku warwara waa maxay rabbi rji'uun ilaahu yacli wa kan adimka garan laaday si aad tiraahdo ayaa calaalku noqon doona ilaahu waqti yaro damba halaysiyo hadduu marka qofku bay yiraahdaan hadafku kallumo qiimaha waqtigu uu kallumo ahmiyadiisa uu garan waayo waqtiga laftiisa qofka xanuun ku noqda